هذه ما سيها شيخ تهليل runtiina xaqiiqadu waa sida uu sheegay waxaan rabaa marka warbixinta ku saabsan barnaamijkan waxa inaan maarta halkan ka aqriyo markii ay daraasaysay baahida Soomaaliya u qabto waxbarashada asaasiga ah waxa u banaanaatay inay garab istaagto shacbiga Soomaaliyeed buuxisana baahida waxbarashada ubadka Soomaaliyeed haddaba intii ay awoodooda iyadoo culayska saaraysa inay waxbarashada ka taageerto caruurta aan waalidkood awoodin inay waxbarashada ka bixiyaan maadaama waxbarashada Soomaaliya ay kaligeed iswado maanta oo ah maalin taariikhi ah waalidiinta Soomaaliyeedna badankood kari waayeen inay ilmahooda iskuulada ka bixiyaan waxa ay hay'adda IRED ku dhiirigelinaysaa inay dafcadii u horeysay oo ah kuwa maanta hortiina ka muuqda inay daboosho baahidooda waxbarasho dhan walba IRED waxay ku tali jirtaa inay si tartiib ah u kordhiso tirada ardayda Soomaaliyeed ee ay waxbarashada ka caawin doonto iyadoo u kala hormarinaysa sida baahidu u kala daran tahay IRED oo ah hay'ad wadani ah waxa uu suura geliyay inay shaqadan asaasiga ah fuliso jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan UK haddaba dhammaan hay'adaha ku hawlan waxbarashada ubadka Soomaaliyeed dadka Ilaahay wax siiyay ee halkaan nala fadhiya ama warbaahinta ka gaarto arintani hay'adaha ka shaqeeya horumarinta waxbarashada Soomaaliya qurba-joogta Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa iskaashi joogto ah si aan aad ugu yarayno baahida waxbarasho ee Soomaaliya xaalka waxbarashada Soomaaliya ee maanta waxaan ku koobi karnaa sida soo socota dhinaca ardayda sida aan ka soo xiganay warbixinada adduunka yaala ee waxbarashada Soomaaliya 9.6 caruurta Soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta ayaa iskuul aada taas macnaheedu waa in 9.4 boqolkiiba caruurta Soomaaliyeed aysan waxbarasho helin intaas aadka u yar ee iskoolka aada 4 meelood 3 waxay dhigataa dugsiyada hoose intaas dhigata iskoolka kala bar in ka badan waxay ku haraan fasalka 4aad kuwa u gudba dugsiyada sare waa cadad aad u yar markaan u fiirsanay macluumaadka kor ku xusan waxaa laga dheehan karaa in aan u baahanay in aan laba jibaarno dadaalkeena ku aadan kor u qaadista tirada iyo tayada waxbarashada dhallaankeena Soomaaliyeed hadafka hay'adda IRED mudnaanta koowaad mustaqbalka dhow inaan ka taageerno waxbarashada caruurta waalidkood uusan awoodin waxbarashada inuu ka bixiyo qodobka labaad inaan ururinno xog ku saabsan baahida waxbarasho ee dalka tuulo iyo degmo intii Ilaahay ka karsiyo mudnaanta labaad mustaqbalka fog tayeynta waxbarashada dalka samaynta macaahid tababarka macallimiinta dhiirigelinta madaarista iyo dalladaha
waxbarashada ee hadda jira gaar ahaan kuwa bixiya waxbarashada lacag la'aanta ah. macluumaad dheeraad ah 83% macallimiinta Soomaaliyeed ma haystaan shahaadada dugsiga sare. 12% macallimiintu waxay haystaan shahaadada dugsiga sare. 5% macallimiintu waxay haystaan shahaado jaamacadeed. 73.4% qofka weyn ma helo nolol maalmeedkiisa. sidaas darteed carruurtoodu ma awoodaan iskuul gaar loo leeyahay inay dhigtaan. 26% carruurtu waxa ay la il daran yihiin nafaqa darro waxbarasho warkeed iska dah. 71% dadka guud iyaguna waa nafaqa daraysan yihiin. sidee carruurtoodu iskuul ku aadi karaan qof isagiiba nafaqa daraysan. 30% waa reer beled. 19.2% ayaa wax akhriya waxna qori kara. 70 dadku waa reer miyi. 6.8% ayaa wax akhrin kara qorina kara. intaas waa warbixinta adduunka taala ee IRAD ay soo diyaarisay.